aad iyo aad baa mahadsantahay cabdiqani wayni mahad celinayaa dhammaan baha theater production waa ku mahadsantiin kulankan iyo barnaamijkan ka qabanaysaan bulshooyinka reer Puntland waxbarashada Puntland heerkeeda koowaad waxbarashada asaasiga ah waxaa ka bilaabay Puntland gaar ahaan gobolka Nugaal halkaas oo aan ku barbaaray waxaan ku bartay aan kaga dhameeyay ilaa waxbarashada hoose dhexe iyo sare sidoo lamida waxaan nasiib u lahaa ardadii dalka Itoobiya jaamacadda aaday ku soo diyaarisay jaamacadda heerka koowaad isla gobolka ayaan dib ugu soo laabtay mar kale anigu aan waliba waxbarashadeedii sii watay bilaaban inaan dalkayga u shaqeeyo anigoo wali wada waxbarashada heerka labaad iyo batch kale oo koowaad anigoo hadda wada aad iyo aad baa u mahadsantiin aniga waxbarashadayda waxay ku salaysan tahay aan wax ku bartay Puntland ku barbaaray kuna koray faa'iido badan aan ka helay oo runtii aan aaminsanahay in dad badan oo reer Puntland shaqo Soomaaliyeed aysan helin marka halkaas waxbarashada ka bilaabay kuna dhameystay walaal gacale waa maasantahay walaal cabdiqani runtii taas waxa kugu sheegaya tusaale inaan nasiib badanahay ama dhalaanka Puntland ay dad nasiib badan kadib Soomaaliya markay burburtay dadkii kala qaxeen maamulka Puntland wuxuu nasiib u yeeshay dad nabadda jecel inay isu yimaadaan showraan sameeyaan Puntland nidaam loo jeeyo dhalaankii la badbaadiyo ay wax bartaan halka Soomaaliya inteeda kale la isleynayay qaxaysay wareerku ka jiray maraan Itoobiya joogay baa nin koonfurta Soomaaliya ka yimid aan iswareysanay wuxuu ii sheegay in dadka reer Puntland dhalinyaro ka mid yihiin oo dad aqoontooda aad u fiican tahay oo iskuul system lagu soo barbaariyay aad uga nasiib badan yihiin marka loo eego dadka kale gobolada kale ka imaaneen sababta waxaan weydiiyay wuxuu ii sheegay hal mar inuusan iskuul si regular u dhigan oo ahayd mar inuu qaxo mar uu dagaal socday mar ay ahayd inuu fursad intaan lagaasan halin marka waxaan maskaxdayda ka shaqaysiiyay dhalinyarada reer Puntland aan maalin iskuul ka istaagin maalin waxbarashadu ka baaqan system dawliga loogu diyaariyay iskuulo dawliga loo diyaariyay waxbarasho tayo loo diyaariyay manhaj leh system leh waxaan qiyaasay iyo dadka sidaas wax ku baranayay oo laga yaabo maalin intay tagaan xasiigooda intay qaataan ama gogashooda geed hoostiis macalinku ugu dhigayay waxaan ilaahay inta wax loogu xamdi noqo baan ogaaday alxamdulillaah rabbil caalamiin oo ilaahay dadka siiyay kuwa aan helina fursadaas waxaan rajaynayaa iyo kuwa aan wili hadda aan haysan in ilaahay dib ka siin doono oo aan ugu ducayn doonaa waxaan leenahay waxaan in dheerna maana waa wax ilaahay noo qadaray ilaahayna siiyay dadaal waalidiinta iyo dadka ay ku yimaadeen idinkana waa ka xunaa inaad macaanagtayna fursad noocaas helin nasiibka iyaguna marka waxa weeye waa nasiib badan kaliya maahane wixii sidaa loogu tabcay oo aan nasiibka ku helay inaan ilaashano tabacno baan rajaynayaa iyadana naga sii go'an adwanaad baa maasantaa walaale 1 Agoosto waxay igala qiiman badan tahay maalin kasta sida maalinta aan dhashay oo kale oo ah haddii ay 1 Agoosto jirteen oo aan 1 Agoosto Puntland la asaasin oo Puntland la hindisin oo aysan ahaateen shirka bacdi maalinta la isu yimi oo la asaasay maamul ka kooban 3 gole dawladda sida golaha wakiilada ama golaha xildhibaanada oo ka kooban 66 xildhibaan golaha xukuumadda oo hogaaminaya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku iyo golaha garsoor maalintii loo fariistay oo shirar isdaba joog ay shirka maalinta ka soo bixeen waxa iga dhigan tahay maalinta ugu qiimo badan maalmaha maxaa yeelay maanta waxaan ahay haddii maalinta la keenin oo waxaan laga fakirin oo la keeneen ma noqdeen ilaahay ka suko ma noqdeen waxa iga dhigan tahay maalinta ugu qiimaha badan dadka reer Puntland meel kasta ay joogaan ha ahaadeen ciidamo ha ahaadeen xildhibaano ha ahaadeen siyaasiin waxa u rajaynayaa guul waxaan kale u ducaynayaa kuwii ka soo shaqeeyay 1 Agoosto inay Puntland isku timaado oo nidaam ay samaysato maalmaha qaranka maalinta ugu weyn weeye waana la xoojinayaa insha Allah bidnillah karim waana loo dabaaldegayaa annaguna hadda waxa ka mid nahay tiimka dabaaldegida diyaarinaya waa weyn oo Puntland guud ahaan goboladeeda diyaarinaya waana u dabaaldegi doonaa waana loo sii dabaaldegayaa waana la xusayaa waana la xusi jiray muhiimadda loo xusanayo waxa weeye 1 Agoosto dadku inay bartaan micnaheedu waxay tahay 1 Agoosto sidee ku timi
inay dadku bartaan oo looga shaqeeyo taariikhdii la soo maray looga shaqeeyo qiimaheeduna halkaas uu joogo walaal macaan waa qiimaha ugu sareeya maalintii ugu qiimo badan adiga ahaan maxaad ugu abaalgudday Puntland maadaama aad fursad waxbarasho iyo nolol xasiloon aad gashay aad baa umahadsantay cabdiqani walaale haddii la yidhaahdo caawa la yidhaahdo maxaa Puntland u abaalgudday intii aad joogtay wax kasta oo aan qabtay oo aan sheego ma noqonayaan nin abaalgud maxaa yeelay waxa ay tartay ayaa waxay ka badan yihiin wax kasta oo aan sameeyo abaalgudkaygu marka wax ma ahan halkaan aan kusoo gudbin karo oo aan dhihi karo waxaasaan sameeyey maxaa yeelay de wixii i tartay baa waxaa noqonaya de qofkii yidhi waalidkii baa u abaalgudaya qofkii yidhi oo kale weeye de marka abaalgudka waalidkan hadda waa ogtahay meesha joogo maanta o dhan haddaad de abaalgudaysid waxaa ka muhiimsan hooyadu inta keliya ay urka ku sitay keliyaadan keeni karin marka anigu markaan jaamacadda dhameeyey aan soo noqday dalkii waxaan ka bilaabay shaqadii ugu horreeyay aan bilaabay waxaa shaqo volunteer oo dadkii ugu adeegayo oo u safrayo oo u marayo oo aan weli wado oo qayb ka mid ah waqtiga hadda inaan u shaqeeyo arrimaha bulshada ka shaqeeyo sida waxbarashada iyo arrimaha dhalinyarada iyo wacyigelintooda inaan ka shaqeynayo waxaan diyaar u ah inaan shaqadaas sii wado inaan Puntland kaalin kasta oo igaga aadan oo wax ka tari karo inaan taro ha noqoto mid shakhsiyana iyo mid aan tii ahaan iyo asxaamaan aan wajahayo abaalkeeduna maba gudi karaba hadda Puntland maanta ninkii yiraahdo Puntland abaalkeeda gudaya nin been sheegay weeye marka insha Allah biidnillaahi kariim anuguna wixii aan shakhsiyan u qabtay maanta waxaan dhihi karaa waxay noqonaya wax aad uga kooban marka la eego waxa ay Puntland ii tartay insha Allah biidnillaahi kariim laakiin waxaan ku rajeynayaa qof kasta oo reer Puntland inuu ogaado inay Puntland abaal ku leedahay inuu u shaqeeyo dadka iyo dalkaba inuu u shaqeeyo aad baa mahadsan tahay haddee mustaqbalku waa ninba meesha tabartiisu dhigto nin dhalinyaro baa maanta heerka waxbarashada ku jira qaybteeda labaad weliba waxaan higsanaya waxa weeye in Puntland aan u shaqeeyo mustaqbalka dhow iyo mid ka fog bayna Puntland u shaqeeyo ama aan ugu shaqeeyo nidaam dawli oo aan ka tirsanahay marka ugu shaqeeyo ama aan ugu shaqeeyo nidaam isxilqaan oo anigu aan marka ku jiro qof kastana dee riyo iyo ham buu leeyahay riyadayda ugu weyn waxa weeye anigu inaan Puntland wax ka noqdo oo weliba aan ka mid noqdo dadka ay taariikhda Puntland geli doona ama aan noqdo inaan Puntland hogaamiyo ama aan noqdo inaan Puntland systemyadeeda sarsare aan ku biire insha Allah biidnillaahi kariim hadda iyaduna waa safar dheer iyo waxay u baahan tahay dadaal iyo soo jeed badan iyo magaranaysaa karti badan bay u baahan tahay sheeko kaliya uma baahna marka mustaqbalka insha Allah waxaan rajeynayaa inuu noqon doono mid cad oo dalkayga dadkayga wax ugu tari doono insha Allah biidnillaahi kariim iyadana mustaqbalkana sidaas ku noqon doona haddii Ilaahay idmo Ilaahay baana dee og oo maamulaha mustaqbalka cidna ma maamusho dee nafta yaaba garanaya gabagabadii waxaad halka farin oo wadin lahayd dadka aaminsan Puntland macallimiin ay u arkaan inay daawac Soomaaliya ama kala qaybinayso aad baa u mahadsantahay walaale dadka noocaasa waa dad aan fikradooda sii fogeyn mabaadi'da lagu heshiiyey dalkan lagu dhisay Puntland lagu dhisay iyo midda dawladda dhexe lagu dhisay dadka aaminsan Puntland inay caqabad ku tahay Soomaaliya inteeda kale waa dad aan aqoon garanayn looga sheekayn mabaadi'da asaasiga ah ee Puntland lagu asaasay midda dawladda dhexe ku taagan tahay oo dadka reer Puntland ahaa dadkii ugu horreeyay oo fiila Soomaaliya dawladda maanta joogta geeyay aysan aqoon qofka maanta Puntland necab ma jecla Soomaaliya waa qof Soomaaliya jecel qofka Soomaaliya necabna Puntland ma jecla marka dadkaas waxaan leeyahay Puntland mabaadi'da dastuuriga ee lagu asaasay baa waxay ka mid tahay inay isu keento Soomaalida meel kasta ay joogto qayb ka mid ah waa isu keento Soomaalida halka shirar baa lagu qabtay sida Garowe 1 iyo Garowe 2 Puntland shirarkii ugu dambeeyay hadda kii madaxweynuhu uu qabanayo ugu dambeeyay Sidi Cabdullaahi Dani kii tubta siyaasadda isagana looga hadlay shirar badan baa lagu qabtay kii gobolada ciyaaraha shayto gobol ciyaaraha Garowe la soo keenaa ka mid ah waxaas oo dhan baa ka mid ah weli waxaan raadinaynaa Soomaaliya isku mid ah Soomaaliya waxay qoratay waxay ku heshiisay raacdo isku meel u jahaysan Soomaaliya isjecel Soomaaliya aan la oranayn de hal meel kaalaya looga taliyo hal looga yimaado Soomaaliya qof walba deegaankiisa ku nabad qaro nabadgelyo deegaankiisa ka shaqeynaya shaqada su'aal yar baa ku sheegay aniga hadda shakhsi ahaan Cabdisaaq waxaan ka soo jeedaa Puntland gaar ahaan gobolka Nugaal baa ka soo jeedaa micnaheedu ma ahan marka haddii aan Puntland waxba ka soo qaban oo aan Puntland waxba tari karo inaan Soomaaliya wax tari karo markaan Puntland wax taro deegaanka wax taro aan joogo gobolka aan joogo wax taro degmada aan joogo aan wax taro marka kor baa u socon karaa Soomaaliya korona waa gaari karaa laakiin ninka dhahaya Puntland jiritaankeeda Soomaaliya dib ku yahay walaal sidaa ma aha dib u fiirso
Soomaaliya Puntland waa ka go'aysaa meel ku taalo lama ma jirto meelaha Soomaaliya ku dhibaateena ma jirto Soomaaliya dadka Puntland ku faa'iideena dadka reer Puntland oo kaliya maaha waa dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ayaa yimi oo halka yimi oo wax ku bartay oo ku ganacsaday oo ku dhalay oo dadka reer koonfureedka oo yimi marka haddii ay Puntland Soomaaliya dhib ku tahay maxay dadkaas u joogaan halkan ay uga ganacsanayaan maanta uga shaqeynayaan haddii dhibaato tahay maxay dadka u arki waayeen ma cid maanta Puntland ugu dhibaateyn karaan wax looga sheegi karaa jirta jawaabtu waa maya marka de kuwaas waxaan leenahay inta kaliya ku filan tusaale u qaataan leenahay idinkuna marka qaladaadka aaminsantiin inaad iska deysaan waa fiican tahay jihada dalka iyo dadku u socdaan raaca Soomaaliya hal meel bay ku heshiisay meeshaasna ku wada aadi ka dhaw nidaam federaaliga Suuriya ay qaadatay bay ku heshiisay dawladda dhexe Soomaaliya militariga ahayd baa waxay ku xukuntay aan qori ugu xukumo ku cayriyo taasna waa laga gudbay maanta deegaankaaga oo nabad ka shaqeeyay waxaan leeyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.